haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe inoo saar mahadsanid. Ustaad Khayraad waa nin aad u wanaagsan oo ka shaqeeya arrimaha khayriga ah iyo gargaarka, sidoo kale waxa uu caan ku yahay xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ah. Habeenada ka mid ah, isagoo wata gaarigiisa, waxa uu soo aaday garoonka diyaaradaha si uu halkaasi ugu soo dhaweeyo nin saaxiibkiis ahaa. Hase yeeshee, intii uu ku guda jiray safarkiisa ayaa waxa uu si kadis ah kula kulmay wiil dhalinyaro ah oo kaxaynaya gaari. Isla markiiba waxaa hortiisa ka soo baxay gaari kale. Wiilkaasi ayaa awoodi kari waayay in uu joojiyo gaarigiisa, waxaana uu ku dhacay baala halkaasi ku yaalay. Waxaa la arkayay dhiig fara badan oo ka qulqulaya wiilka shilka galay. Khayraad waxa uu joojiyay gaarigiisa, waxaana uu u soo degdegay halkii uu shilka ka dhacay. Waxaana uu ku arkay wiil dhalinyaro ah oo shil galay, laakiin weli ay naftu ku jirto. Hase ahaatee, Khayraad waxa uu weydiiyay wiilka magaciisa inta uusan miyir beelin, isagoo u sheegay in la yiraahdo Haadi. Durbadiiba waxa uu ku soo qaaday gaarigiisa, isagoo si aan caadi ahayn u soo kaxeeyay, waxaana uu soo gaarsiiyay isbitaalkii ugu dhowaa. Waa uu soo xambaaray wiilkii oo ku sugan xaalad miyir beel ah, waxaana uu la soo galay gudaha isbitaalka, halkaasoo uu kula kulmay soo dhaweeyaha isbitaalka, kaasoo ku yiri, adiga walaalkiis miyaa tahay ama mid ka mid ah qaraabadiisa? Bukaanka magaciisa imse jir weeye? Khayraad ayaa isna ku yiri, waa xaalad degdeg ah. Wiilkani waxa uu ku sugan yahay xaalad khatar ah, laga yaabaa in uu geeriyoodo haddii aanan loo fidinin gargaar degdeg ah. Soo dhaweeyaha ayaa mar kale yiri, waan ka xumahay, xogahaasi muhiim ayay inoo yihiin. Haddii aadan na siinin, ma qaabili karno bukaanka. Adiga haatan waxaad ku sugan tahay isbitaal khaas ah. Isagoo aad u qaylinaya, Khayraad waxa uu yiri, in adiga lagula hadlo wax faa'iido ah kuma sugna. Sidaas darteed, ma i tusi kartaa xafiiska dhakhtarka ama maamulka halkan? Soo dhaweeyaha ayaa isla markiiba u tilmaamay halka uu ku yaalo xafiiska maamulaha isbitaalka. Waxa uu durbadiiba u degdegay qolka maamulaha. Markii uu albaabka furay ayaa waxa uu ku yiri maamulihii, waxaa isbitaalka ku sugan wiil aad u dhiig baxaya. Mid ka mid ah shaqaalahaaga ayaa waxaan ku iri, waxaan doonayaa dhakhtar inoo shaqeeya. Waxaana uu i weydiiyay su'aalo aan xilligan loo baahnayn. Shaqaalaha waa uu saxan yahay. Sidee kuu aamini karnaa haddii aadan qaraabo lahayn bukaanka? Sideen ku helaynaa qarashaadka aan ugu shaqeyno? Khayraad ayaa ugu jawaabay dhakhtarka, aniga ayaa bixinaya dhammaan qarashaadka, laakiin waxaan idinka codsanayaa in si dhaqso ah loogu shaqeeyo wiilka. Waxaana ku xasuusinayaa xadiiskii nabigeena sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, qofkii ka fayda qof mu'min ah kurbo ka mid ah kurbooyinka adduunka, Allah waxa uu ka faydaa kurbo ka mid ah kurbooyinka aakhiro. Fadlan isoo raac oo arag khatarta wiilka uu ku sugan yahay inta ay la eg tahay. Maamulihii ayaa ku jawaabay, aad baan uga xumahay, wax caawinaad ah kuma samayn karno. Khayraad oo aad u yaabay ayaa yiri, xasbiyallah wa nicmal wakiil. Kadibna waxa uu wiilkii oo aad u dhiig baxaya u sii qaaday isbitaal ay dowladda leedahay, xilliga oo goor dambe ahaa oo ay dhakhaatiirtu shaqada ka bixeen. Isbitaalka waxaa joogay oo kaliya ah kalkaaliyaal iyo arday jaamacadeed oo tababar u joogay. Wiilkii halkaasi ayaa lagu qaabilay, waxayna kalkaaliyaasha arkeen in loo baahan yahay in qalliin degdeg ah lagu sameeyo wiilka si loo badbaadiyo
waxay dalbadeen qofka mas-uul ah sida walaalkiis oo kale si uu u saxiixo inta lagu guda jiro qaliinka, iyagoo sheegay in ay suurtagal tahay in la jaro mid ka mid ah xubnihiisa. Markaasi kadib, Khayraad ayaa durbadiiba bilaabay in uu fatasho jeebabka wiilka dhaawaca ahaa, halkaasi oo uu ka helay taleefankiisa, waxaana uu durbadiiba u wacay nambarkii ugu dambeeyay ee uu la xiriiray, kaasoo ahaa aabihii. Wax yar kadib, aabihiis ayaa isbitaalka yimid, iyadoo indhihiisa ay ilmadu ka qubanayso. Wiilka aabihiis ayaa durbadiiba arkay Khayraad oo ku yiri, soo ma tiid ninkii daqiiqado ka hor igu yimid isbitaalka ee igu yiri xasbiya allaahu wa nicmal wakiil, halkan maxaad ka qabanaysaa? Khayraad ayaa ugu jawaabay oo yiri isagoo murugaysan, aniga waxaan ahay qofkii halkan keenay wiilkaaga. Kadib markii aad diiday in aad isbitaalkaaga ku qaabisho nin yahow qalbiga adag, dhakhtarkii ayaa wiilkiisa u qaaday isbitaalkiisa khaaska ah, waxaana uu u sameeyey daaweyn iyo qalliin degdeg ah, iyadoo ilmadu ay ka qubanayso indhihiisa. Arrinta la yaabka ku noqotay dhakhtarkii wiilka dhalay ayaa ahayd kadib markii uu arkay Khayraad oo salaad sunno ah tukanaya, una ducaynaya wiilkiisa sida walaalkiis laxmi ah oo kale. Waa uu sugay, kadibna hab ayuu siiyey. Markii uu ducada dhammaystay, dhakhtarkii waa uu cudur daartay, waxaana uu ballan qaaday in uu hadda wixii ka dambeeya uu dadka masaakiinta ah caawin doono, waxaana uu noqday nin wanaagsan oo ku dadaala salaadaha iyo acmaasha wanaagsan. Mar kasta oo uu fiiriyo wiilkiisii ku waayay shilka gaari lugta bidix, waxa uu dhahaa, allow ii dembi dhaaf, haddii aan caawin lahaa qof maskiin ah oo lacag la-aan ku daweyn lahaa dadka faqiirka ah, dhibkan kuma dhaceen wiilkayga. nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxa uu xadiis shariif ah ku sheegay sida tan: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. sadaqada waxa ay dimisaa carada Allah, waxayna kaa difaacaysaa in aad si xun u geeriyooto.